Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelka Tubta Wararka. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijraadkeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbi doonana waxaa ka mid noqonaya muxuu farmaajo kala hadlay madaxdii ka socotay midowga Afrika ee uu la kulmay isla markaana ku qaabilay Villa Soomaaliya madaxtooyada qaranka. halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbi doona warar intaasi la xiriira. sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa duqeymaha iyo dagaalka tooska ah ee ka soconaya caasimadda Ukraine ee Kiev. waxaana markaasi halkan idinkugu soo gudbi doonaa reer galbeedka oo qaaday tallaabadii ugu ciqaabta adkeyd ee uu Putin ka baqayay. haddaba wasiirka arrimaha dibadda oo xog niyad jab leh ka bixisay dagaalka Ukraine. sidoo kale daawadayaal waan soo qaadan doonaa Soomaalida ku sugan Ukraine oo ku jirta xaalad quusa. waxaan ka bixi weynay Kiev oo caasimadda dalka Ukraine ayay ku hayaan. halkan ayaana daawadayaal idinkugu soo gudbi doonaa falaqeyn arrintaasi ku aadan. soo dhawaada daawadayaal, haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe inoo saar channelka fura gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. muxuu farmaajo madaxweynihii hore ee dalka kala hadlay madaxdii ka socotay midowga Afrika. madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulan uu madaxweynaha mudxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo la yeeshay gudoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika. sida lagu sheegay war-saxaafadeeda Villa Soomaaliya, kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray wada shaqeynta Soomaaliya iyo midowga Afrika, dagaalka ka dhanka argagixisada, mustaqbalka waajibaadka shaqo ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladaha amni iyo horumar ee ka jira gobolka. haddaba war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya ayaa waxa uu qornaa isaga oo dhammaystiran sida tan: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika Danjire Bokola Adiola. madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta Soomaaliya iyo midowga Afrika, dagaalka ka dhanka argagixisada, mustaqbalka waajibaadka shaqo ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladaha amni iyo horumar ee ka jira gobolka. gudoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika Danjire Bokola Adiola oo uu weliyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madera ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo fidiyay, isaga oo bogaadiyay horumarka dowladda Soomaaliya ee ka gaartay geedi socodka arrimaha doorashooyinka, amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada. kulankan waxaa madaxweynaha ku weliyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Maxamuud Cabdi Xasan Bekos, agaasimaha guud ee madaxtooyada Mudane Maxamed Cabdilaahi Ciise iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xiriirka la leh arrimaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. markaana daawadayaal haddaynu eegno xaaladda Kiev oo ah caasimadda dalka Ukraine, reer galbeedka waxa ay qaadeen tallaabadii ugu ciqaabta adkeyd ee uu madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka baqayay in muddo ah. Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub ayaa Sabtidii qaaday tallaabadii ugu adkeyd ee dhaqaale ahaan loo ciqaabayo Ruushka, iyaga oo soo saaray liis cusub oo xayiraad ah. hase yeeshee tallaabooyinka la qaaday ayaa waxa ugu weyn in bangiyo badan oo Ruush ah laga saaray nidaamka Swift ee isku xira bangiyada caalamka, taasi oo Ruushka ka go'doominaysa dunida inteeda kale maaliyad ahaan. waxay sidoo kale wiiqeen awoodda bangiga dhexe ee Ruushka uu u leeyahay in uu xoojiyo lacagta dalkaas ee loo yaqaano ruble, taasi oo sargaal sare oo Mareykan ah uu sheegay in qiimaheeda uu dhulka ku hooban doono. reer galbeedka ayaa sidoo kale ka digay in ay ugaarsan doonaan doomaha, diyaaradaha, baabuurta, guryaha raaxada iyo hantida kale
ay ganacsatada shidaalka ka taajiray ee Ruushka ku leeyihiin caalamka. In Ruushka laga saaro nidaamka SWIFT waa tallaabadii ugu adkeyd ee madaxweyne Vladimir Putin uu ka baqayay, isaga oo hore u sheegay in ay la macno tahay dagaal lagu iclaamiyay Ruushka. Tallaabadan ayaa waxaa taageeray Mareykanka, Canada, Midowga Yurub, Britain, France, Germany iyo Italy. Waxaa sidoo kale ku soo biiray dalal uu ka mid yahay Japan. Saameynta ayaa durba laga dareemayaa Ruushka, iyada oo lacagta dalkaas uu qiimaheeda hoos u dhacay. Sidoo kale sicir barar degdeg ah la dareemay, halka qof kasta isku dayayo in uu lacagtiisa u beddesho dollar ama euro. Bayaan ay soo saareen ayay reer galbeedka ku sheegeen in ay ka go'an tahay in ay xayiraado cusub soo rogaan, taasi oo burburin doonta dhaqaalaha Ruushka. Waxaan garab taaganahay siina wadi doonaa inaan taageerno shacabka Ukraine ee wajahaya daqiiqadoodii ugu madoobeyd, ayay ku yiraahdeen bayaanka. Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo dagaalka Ukraine sii xoogeysanayo, xilli ciidamada dalkaas ay muujinayaan adkaysi iyo difaac adag, iyada oo xaaladda ay mid sidii loo maleynayay ka adag oo ku noqotay ciidamada dalka Ruushka. Markaana daawadayaal, haddaynu eegno wasiirka arrimaha dibadda ayaa markaasi waxaa la soo warinayaa in ay xog niyad jab leh ka bixisay dagaalka ka holcaya magaalada Kiev oo caasimadda dalka Ukraine. Wasiirka ayaana arrimo badan bannaanka soo dhigtay. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine wuxuu socon karaa sanado badan, waxayna dunida u baahan tahay in ay isku diyaariso in Moscow ay isku daydo in ay adeegsato hub ka sii xun kuwa iminka. Waxaa sidaas ka digtay wasiirka arrimaha dibadda Britain Liz Truss. Waxaan ka cabsi qabaa in tani ay noqon doonto masaafo dheer. Tani waxay noqon kartaa sanado badan, ayay Truss u sheegtay Sky News. Ruushka waxay leeyihiin ciidamo xoogan, waxaana ognahay in Ukrainiyiinta yihiin geesiyaal. Waxaa ka go'an in ay u istaagaan qarannimadooda iyo sharaftooda dhuleed, waxaana ka go'an in ay dagaalamaan. Wasiirka ayaa sheegtay in warbixino sirdoon ay muujiyeen in ciidamada Ukraine ay sii wadaan in ay iska caabiyaan soo siqitaanka Ruushka, isla markaana aysan dhicin isbeddel waaweyn. Hase yeeshee, waxay ka digtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu adeegsan karo hub ka sii dhimasho badan. Tani waxay noqon kartaa bilowga dhammaadka Putin, waxaana ka cabsi qabaa in ay ka go'an tahay in uu dagaalka u adeegsado hababka ugu xun. Waxaan ka cabsi qabaa in dagaalkan uu noqon karo mid aad iyo aad u dhiig badan. Waxaan u baahannahay inaan diyaar u noqono in Ruushka ay isku dayaan in ay adeegsadaan hub ka sii xun, ayay ku dartay. Si kastaba ha ahaatee, Putin waa inuu ka warhayaa in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ay goor horeba eegayso waxa ka dhacaya Ukraine, ayna jiri doonaan cawaaqibyo dhab ah oo uu si shakhsi ah u wajaho, ayay u sheegtay Sky News. Dalalka reer galbeedka ayaa isku raacay cunaqabateeno cusub oo maaliyadeed oo ka dhana Ruushka sababo la xiriira duulaanka ay ku qaaday Ukraine, kuwaasi oo ay ku jirto in bangiyo dhowr ah oo Ruushiyaan ah laga saaro nidaamka SWIFT ee isku xira bangiyada caalamka. Xulafada ayaa sidoo kale isku raacay tallaabo looga hortegayo in bangiga dhexe ee Ruushka uu kala wareejinta maaliyadda ee caalamiga ah u adeegsado in uu ku xoojiyo lacagta ruble ee Ruushka, sida uu sheegay sargaal Mareykan ah. Ugu dambeynna daawadayaal, haddaynu eegno Soomaalida ku sugan Ukraine oo ku jirta xaalad quus ah, waxaan ka bixi weynay Kiev oo ah caasimadda dalka Ukraine, ayay ku hayaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xayiran dalka uu dagaalka ka socda ee Ukraine, oo maalinkii afraad si xiriira u wajahaya duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaas ayaa warbaahinta la hadlay, iyagoo sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay xaaladdu ka sii darayso, isla markaana uu maanta dagaalku aad u xoogeystay. Cabdiqani Mayow Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan caasimadda Ukraine ee Kiev. Waraysi uu siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in hadda ay xaaladdu ku adag tahay. Wiilkan oo taariikh ku galay dalka Ukraine
ayaa sheegay in ugu yaraan 2 jeer uu ku guuldaraystay in uu ka baxo dalkaas, sidoo kalena in ka badan 2 sano uu ku xirnaa xabsiyada dalka Ukraine kadib markii laga soo qabtay xuduudka. Cabdiqani ayaa sidoo kale sheegay in ayagoo Soomaali badan ah ay hadda ku xayiran yihiin caasimadda Kiev oo bandow lagu soo rogay, isla markaana ay qorsheynayaan in wixii beri ka dambeeya ay isaga baxaan dalkaas markii bandowga laga qaado caasimadda oo dagaalka ugu xoogan uu ka socdo hadda. sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Britain Liz Truss, dagaalka Ruushka Ukraine ayaa sii xoogaysanaya, waxayna saadaalisay in dagaalkan uu sii socon karo sanado badan. Cabdiqani Mayo waxa uu sheegay in ay waayeen wiil Soomaaliyeed oo xanuunsanaa, kaas oo ka mid ahaa dadkii laga sii daayay xabsiyada Ukraine si naftooda ay u badbaadsadaan. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijyaadka channelka tubta wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka. muuqaalka like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Faraga Balaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino. subscribe haddii aad inoo saarto daawade dabadeed qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaagtan iyo barnaamijkan kiisa kalena inta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.